Assalaamu calaykum. Maanta waxaan bilaabi doonaa cutubkii labaad ee fractionka ama jajabka. Waa maxay jajab? Jajabku waxa uu taagan yahay qayb ka mid ah wax guud. Iminka haddii wax loo kala jabiyo tiro qayba ah, jajabku waxa ku tusayaa inta wax ee aad qaybahan ka haysato adigu. Tusaale ahaan, iminka haddii keeg aynu soo qaadno, keegii laba loo kala jabiyey, qayb baa la cunay, qayb baa harsan. xisaab ahaan sidaynu ku qori karaynaa, waxaanu qori karaynaa horta marka ugu horeysa keega waxaanu qaybinaa labadii ayaad hooseeya ka dhiganaysaa. imisa la cunay qaybood, qayb baa la cunay, marka halkii la cunayna xagga sare saarnaysaa. marka waxaad u akhriyaysaa laba meelood oo meel. haddii iminka keegii 4 meelood loo qaybiyo, qayb la cuno, xisaab ahaan sidaynu ku qornaa, waxaan sameynaynaa keega marka hore misaad u qaybisay 4 qaybood baa loo qaybiyey. waa sax, hooseeyaad ka dhiganaysaa 4tii. imisa la cunay, hal baa la cunay, halkiina xagga sare saarnaysaa. marka waxaad u akhriyaysaa 4 meelood oo meel ayaa la cunay. kanse ku xiga haddaynu eegno, keegii 4 meelood baa loo qaybiyey, waxaa la cunay 3 meelood. xisaab ahaan markaynu qorayno waxaynu hooseysiinaynaa marka hore keega intaynu u qaybinay. keega waxaynu u qaybinay 4 qaybood. imisa qaybood baa la cunay 3, saddexdiina xagga sare saarnaysaa. marka waxaad u akhriyaysaa 4 meelood oo 3 meelood ayaa la cunay. iminka waxaan kala baran doonaa sarreeye iyo hooseeye. marka jajabka la qorayo waxaa jira 2 qaybood oo waaweyn, waa sarreeye iyo hooseeye. sarreeyuhu waa inta qaybood ee aad haysato, hooseeyuhuna waa inta qaybood ee wixii guud loo qaybiyey. qaybaha jajabka waxaa jira 3 qaybood oo kala duwan oo loo qaybiyo jajabka. qaybta koobaad haddaynu eegno, waxaa loo yaqaanaa jajab qumane ama proper fractions baa English lagu yiraahdaa. jajab qumanuhu waa ka sarreeyuhu uu ka yaryahay hooseeyaha. iminka 1 loo qaybiyey 2, 5 loo qaybiyey 8 sarreeyaha yar, 13 loo qaybiyey 21 sarreeyaha yar. haddii jeer sarreeyuhu uu ka yaryahay hooseeyaha. si waxaad ogaataa marka la joogo jajab qumanaha, haddii jeer 1 buu ka yaryahay. iminka 1 haddii loo qaybiyo 2 dee waa half, 0.5 baa ku subaxay wax halka yar. iminka 5 haddii loo qaybiyo 8 waxaa ku subaxaya wax halka yar. 13 loo qaybiyo 21 waxaa ku subaxaya wax halka yar. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa jajab maqumane ama improper fractions baa English lagu yiraahdaa. jajab maqumanahu waa ka sarreeyuhu uu ka wen yahay hooseeyaha. iminka 3 loo qaybiyo 2 sarreeyaha weyn, 7 loo qaybiyo 5 sarreeyaha weyn, 14 loo qaybiyo 9 sarreeyaha isna weyn. si waxaad ogaataa marka la joogo jajab maqumanaha, had iyo jeer wuxuu ka wen yahay 1. iminka 3 haddii loo qaybiyo 2 waxaa ku soo baxaya wax halka weyn, tira halka weyn baa ku soo baxaysa. 7 loo qaybiyo 5 waxaa ku soo baxaya tira halka weyn. sidaas si lamid ah 14 loo qaybiyo 9 tira halka weyn baa ku soo baxaysa. qaybta saddexaad waxaa la yiraahdaa jajabka kan ama mixed fractions baa English lagu yiraahdaa. jajabka kan wuxuu haystaa qayb ka mid ah tira idil iyo qayb ka mid ah tira jajaba. iminka horgala 1 iyo jajab 1 loo qaybiyo 2, 3 loo qaybiyo 4 oo horgale 3 ay u tahay, 1 loo qaybiyo 4 oo horgale 2 u tahay. marka jajabka kan baa kana loo yaqaanaa. maanta insha Allah intan hore dhacban ku dhigaynaa jajabta insha Allah tan iyo casharka dambe waa inoo iyo casharkeena xiga.